daawadayaal waa barnaamijkeennii aynu kaga hadli jirnay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn khaasatan shirka ka socda degmada Taleex waxyaabaha caawa aan ku soo qaadi doono barnaamijkeena waxa kamid ah bal sida siyaabaha ay saxaafadu uga hadleen shirka ka socda Taleex khaasatan saxaafada ka soo baxda maamulka isku magacaabay Somaliland dhinaca kale waxaan ku eegi doonaa iyana saxaafada ka soo baxda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaan maanta ka wareystay oo saaxiibkay oo isagu dhex maray shaashadaha ama jaraa'idada ka soo baxa gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo maamulka Somaliland labadaba marka ugu horeysa Axmed aan ku hormarnay saxaafada Somaliland aad bay u hadalhaysay shirka ka socda Taleex ugu horeyn maxay saxaafada Somaliland ka qortay maalmaha shirka Taleex maxamed horta aad baad u mahadsan tahay sidaan wada ognahayba markii hore saxaafada horta waxa la yiraahdo maanta shabakadaha wararka waxay galeen booskii ay gali jireen wargeysyada iyo telefishinada dadku halkay ka raadsan jireen wararka raadiyaha ama telefishinada hadda dadka aad waxay u galaan waxa la yiraahdo shaashadaha ama website-dadaas dadka badanaa warku ka helaa haddaan su-aashaada usoo dhaadhaco website-dada ama shabakadaha ka soo baxa dhinaca Somaliland ama maamulka la magac baxay Somaliland markii hore arrinta waxba kama ayan qorayn waxaan u malaynayaa inay ku jireen wareer ama confusion oo ay garan waayeen arrintani waxa kala gudboon oo waxaan u malaynayaa waxaa jira shaki bal fikirka ay dawladdu ka qabto wuxuu yahay arrintii maalintii dhaweyd wasiirku Somaliland arrimaha gudaha markuu ka hadlay taa ayay waxay bilaabeen inay ka hadlaan sida aad ogtahayna website-dada ka soo baxana aad bay u badan yihiin dadka wax ku qoraana aad bay u badan yihiin qoraaladooda iyo maxaan ku raahdaa sababtay tahay hadafkooda ay rabaan inay meel ka gaaraan awgeed sida la adigeed maanta goor subaxnimada ay tahay ayaa waxaa la ii soo diray linki website dadku ay u arkaan inuu yahay website Soomaaliyeed oo dhexdhexaad ah marka loo fiiriyo website-da Somaliland ayaa waxa ku qoraa opinions ay dad u soo direen oo fikir ah laakiin waxaad moodaa fikirkaas inuu website-ka naftigiisa uu qayb uu ka leeyahay marka sidoo kale oo togdheer oo kale ayaduna waxay ka soo qortay maqaalkaas oo ay soo xiganaysay nin aan u malaynayo inuu xildhibaan ka yahay Somaliland oo yiri shirka Taleex waxaa joogta 400 oo ciidanka mushaharka qaata Somaliland mana suuragelayso shirka lagu weeqayo Somaliland inay ciidan waardiyeeyaan kamid ciidanka dabcan wuxuu ula jeedaa ciidanka yimid Somaliland ma ahna ciidanka qabaailaadka ma garanay anigu mushaharkaas meeshu ka yimid waa gartay saxaafada Somaliland runtii waxa lagu yaqaanaa inay marka issue oo kale ama arrintan oo kale ay timaado inay si caadifad ku jirto uga hadlaan waxyaabaha ka dhacaya mandaqada waxaad sheegtay wargeys hadda lagu soo qoray maqaalin kasta wargeysku yiri maqaalkaas shaqo kuma leeyahay oo iska fogay haddana kali dabcan qofka soo qoray waa qof uu iyaga ka haysta dhinaca kale waxa saxaafada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyada ka waran xalkeeda maxay ka hadlayaan wallahi horta intaanan ka gudbin arrintan waxaan kaaga warramayaa website-ka ama shabakadaha dadka iska leh waxay mas'uul ka yihiin waxa website-kooda lagu qoro dad badan baa marka qaarkood waxay sameeyaan oo aniga naftigeyga way ugu dhacday maadaama shabakadan booca la shaqeeyo waxaa jirta qof baa doonaya inuu fikir geliyo fikirkii qofkii marka wuxuu marka qaarkood ma rabo inuu magaciisa meesha geliyo wuxuu isku dayayaa qofka inuu soo isticmaalo magac aan jirin marka qofka markaad opinionkiisa aad ma fikirkiisa aad gelinaysa website-ka waa inaad horta adigu qofka aad yahay qof aad si fiican u taqaanid waa inuu qofka uu sheegaa macnaheedu asagoo aan isqarinayn magaciisa saddexan sidoo kale waa inuu qofka ku qoraa emailkiisa lacalla hadii uu qof akhriyo maadaama waxana fikirkiisa ay tahay qof kalena uu dood ka qabo sida meesha lagala soo xiriir lahaa marka artikaladan lagu soo qoray website-kan harwanaag waxay u muuqataa wax kicin ah oo ay iyaguna iska leexinayeen laakiin ayaga nafsad ahaantooduba ay yihiin qorayaasha sida aan qiyaasay inay qoreen sababtoo tahay ma wato waxa la yiraahdo emails oo ah qofkii soo qoray emailkiisa haddii aad u fiirsatid article-kana waxaad moodaa inuu ku jirto kicin bulshada oo la kicinayo oo leedahay arrintan ka socoto shirkan Taleex waa inay dawladda ama maamulka Somaliland ay wax ka qabtaan
taasoo ay tahay wuxuuna leeyahay waa in ay shicibkoodana ay garab istaagaan taasoo micnaheedu ay tahay hab qabiil waaba in markan lagu wajahaa dagaalka. waa gartay dhinaca kale saxaafadda gobolada sool sanaag iyo cayn iyagu waxaad u moodaysay inay kolley waxaan ka qorayaan shirka iyo waftiyada socda iyo iyagu intee leeg bay ka hadleen arrintan iyagu se ma ku baraarugsan yihiin xaaladda iyo wacyiga lagu jiro iyo marxaladda uu hadda gobolka faajignaan waxaan u malaynayaa way jirtaa foojignaan way jirtaa laakiin hase ahaatee maanta qof soo wacay baa arrintan igala hadlayay waxaa jirtaa inay jirto wax la yidhaahdo urursanaan iyo urursanaan ay saxaafadda dhinaca Somaliland ay ka urursan tahay yani ay yihiin dad isku xiran sababta taa hadda waxaan aqrinayay website-ka Togdheer News warka ku qoran ma aha warka lagu soo qoray website-kaas wuxuu ka soo qaatay haatuf wargeys kale oo la yiraahdo isagana ka soo baxa dhinaca Somaliland waxaan moodaa inay jirto isku xirnaansho waxaa jirta inay dad ka midaysan yihiin hadafkaas oo ah maxay hadafka Somaliland waxaad moodaa marka ay issue-ga gudaha wadanka ay tahay they are divided way kala qaybsan yihiin xisbiye u kala qaybsan yihiin mararka qaarkood waxaa arkaysaa fikirro qabaa'ilad bay u kala qaybsan yihiin hase ahaatee laakiin markuu wuxuuba ay yihiin outside-ka laascaanood inkastoo ay yidhaahdaan way naga mid tahay laakiin haddana waxay u arkaan dadka degan inay yihiin outsiders sida la aligeed issue-ga laascaanood way u midoobayaan marka si adag bay wax uga qorayeen wasaaraddan kale ee dhinacan SSC ah iyagu waxaa jirta kala daadsanaan fara badan oo aad u kala daadsan yihiin isku xirnaansho ma jirto shakhsiyaad baa iskale website-kii ugu badan waxaan qiyaasayaa inay ka shaqaysato 2 qof waxa la mid ah marka haddaad kaaga warramo maanta waxyaalaha ka qoreen waxa ugu weynaa in uu shirku bilaami doono haddii ilaahay idma berrito walow aanan la hubin oo aanan ilaa iyo hadda aan arkin shirkii inuu bilowdo laakiin waxa ugu weyn maanta ay qorayeen taasa ugu weyneed sidoo kale shalayto waxay soo qoreen oo aanan malaynay inaan ka hadlin hogaamiyaha SSC Salebaan Xagla Toosiye oo isagu markii hore Buuhood la jooga gobolka Cayn iyo Caqil Maxamuud Cumar Camey baa iyaguna sidaas oo kale iyo ergooyinka ka imanayay Buuhood ayaa iyaguna shalay soo gaaray magaalada Taleex si fiican loogu soo dhaweeyay ilaa jidkay soo marayeen sida magaalada Boocam oo kale marka arrimahaas bay haddu saxaafadda waday sidoo kalena waxaad moodaa inuu ku hormaray inuu u soo tacsiyeeyo reerihii maxaan ku radaa colaada dhexmartay Taleex ku dhexmartay inuu u soo tacsiyeeyo ma garan doono inuu shirku bilaami doono berrito iyo in ay dhici doonaan ka hor wada hadallo kale oo yeelan doonaan dadka qabanqaabinaya shirka iyo kuwa ka qayb qaadanaya waa tahay marka la eego waxaad sheegtay in saxaafadda Somaliland ka soo baxdaamin dadka isku magacaabay Somaliland inay isku xidhnaansho ay ka muuqato haddaanan khaldanayn waxaa saxaafadaha qaar oo ka soo baxa gobolada Sool Sanaag iyo Cayn qaarkood bal waxayba u arkaan shirkani inuu yahay shir lagu majra habaabinayo ama aan wax dana ugu jirin gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kuwaas iyaga xaaladoodu waa maxay xagee bay wax ka arkaan iyagu aan dib ugu noqdo horta marka aad tiraahdid versus iska soo horjeedka markaa fiirisid SSC media iyo markaa isu fiirisid Somaliland media horta unfortunately dadkani waa dad Soomaaliya waa dad walaalaha waa dad wada dhashay laakiin waxaa kala qaybisay siyaasadan kala qaybisan qarniyaal bay siyaasadan soo socotay waxaan u malaynayaa halka Somaliland ay ka go'ay lahayd koonfur haday ciid ka go'i doonto aakhirka waxa xuduudda la dhex dhigi doona waxa weeye dadka SSC iyo dadka Somaliland raba mabda'idina go'aystaan markay arrintu meesha iska qaadan laadahay waa meeshaas ma aha dhinaca suke xagga media haddaan kaaga warramo horta ma isu dhigmi karaan sababta iskugu dhigmi shilaan ahaanta keeni kartaan waxa weeye arrintan waxa aaminsan rag 60 jir ah rag 50 jir ah rag 30 jir ah ma garatay nin walba oo gobolada ka soo jeeda Somaliland xabadku macni garaacanaya wuxuu leeyahay anigu nir Somaliland nahay waa halkan la soo taagay anagu dadkayaga waxay ilaa ay hadda kala garan la yihiin waxa la yiraahdo SSC iyo waxa la yiraahdo Soomaaliya qofku waxa weeye marka aad xal ka heshid degmadaada marka aad ka heshid xal goboleed aad heshid ayaad waxaad aadi kartaa xalka dariska sababtoo taa marka koonfur nin SSC jooga waxba kama xalin karo hadii uusan dhibaatadiisa uusan xalin ma garatay marka arrintan xagga saxaafadana dad xoogaa isku dhigmaash la'aanta waxa keenaya dadka aan face garaynayno waa dad macnaheedu aad nooga badan ma garatay tusaale ahaan haddaan fiirino website-ada ka soo baxa Puntland oo kale horseed Garowe online all Puntland
they are not even talking about it wax ay ka qorayaan shirka ma jirto marka haddii ninkii kuugu xigay oo days ahaan dhinacan kaa saaraa uusan arrintaadii uusan leeyahay waxba igama qusayso qoladaasay qusaysaa marka waxa weeye waxaa face garaynaysaa keligaaba waxaad face garaynaysaa mawjad so waxaan oran lahaa micnihii waxaan waxa weeye waa advocacy waxa weeye qofka bini aadanka waxaad xaq u leedahay baa jirta iyo waxay dad kale xaq ay kuugu leeyihiin wuxuu mar haddii uu yahay degaankaaga adigaa xaq u leh qofka bini aadankana waa self defense weeye self defensegaas baa dadku ay ku jiraan hadda waa gartay sidoo kale barnaamij maalmaha kan saxaafaddu waxay aada uga hadlaysay hadalkii uu jeediyey wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland waxyaabihii ugu weynaana waxaa la isweydiinayaa arrintani maxay keeni kartaa ama maxaa ka dhici karaa inkastoo in hore uga hadalay arrintaas saxaafaddii wax ma ka qorto wallahi waa arrinta waxaan oo dhan kicisay waxa weeye website-adu qayb bay ka qaadan karaan nabadgelyada sidaas oo kale colaadana qayb bay ka qaadan karaan sababtoo ah waxaan waxaa akhrista kumanaantada ninka markuu hadlay ayaa waxaa bilaabatay shabakadihii oo dhan in hadalkiisii laga daba yiraahdo sida aad ogtahayba isla maalintii uu ka hadlay Voice of America u malaynaya in ahayd maalintii ku xigtay Voice of America waxay wareysatay engineer Maxamed Cali Mire oo isagu markaa joogay Sweden ahna oo gudoomiyaha ururka NSUM kana soo jeeda deegaanka arrintu halkaas ay ka bilaabatay soo dadku marka waxaa la bilaabay shirkiiba ma ahane in maxaan ku raada dadkiiba saxaafadii immediately la soo isticmaalo waxaan malaynayaa hadda saxaafaddu bay maraysaa marka dambe wax kalan malaynayna hawl kala meesha ka soo socota waayahay su-aasha saddexaad rabena ku weydiiyo waxa weeye maadaama aynu ka hadalay saxaafaddii Somaliland iyo siyaabihii ay uga hadashay shirka ka socda Taleex saxaafadda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn aynu aragno maxaad is leedahay baa la gudboon dadka wax ku qora saxaafadda dadka ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn maxay tahay dhibaatada haysata oo iyagu aanay u lahayn xiriir oo sida kuwaad sheegtay kuwa kale ay u leeyihiin xiriir joogta maxamed haddaan ka jawaabo su-aashan horta waxaan arkay anigu waxaa jira dad fara badan oo dhalinyaro ah oo aad u xiiseynaysa inay gasho saxaafadda sida la adligeed maadaama ay jiraan dad wixii xiiseynaya horta professionkan ana waa profession dadka badan hadda Soomaalida anugu wada cusub laakiin waxaan marka ugu horeyso horta waxa weeye dhalinyarada in macnaheedu tababar ay helaan waa arrinta ugu muhiimsan oo qofkii uu fahmo saxaafadda naftigeeda waxa weeye saxaafadana arkaysid nin waa reporter waa ninkii warka soo gudbinayay nin waa photographer oo ninkii sawirka soo qaadayay nin waa videographic oo ninka macnaheedu kamarada duubaya cameramanka dad waa editorial oo waa dadka eega haddaad eegtid newspaperada adduunka sida ay u shaqeeyaan waxaad arkaysaa newspaper magaalo yar ka soo baxa taqriiban waxaa u shaqeyso 70 qof 80 qof waxyaalo badan oo kala duwan bay leeyihiin marka waxaad arkaysaa warkii la iskama geliyo website-ada gudi baa ka fariista waa la eegaa arrinta tafaftirad baa lagu sameeyaa wixii qaladka laga saxaa qofka muddo ku qaata inuu wixii diyaariyo waxa ugu muhiimsan horta waxa weeye waxbarashada inay dhalinyaradan aad u xiiseynaysa inay saxaafadda gasho waa mid koowaad inay helaan tababar talabaad oo loo baahan yahay waxa weeye tababarka ka sokow waxaa jira saxaafadda oo dhan waxay ku xiran tahay yaa ku maalgeliya wixii hadduu website uu yahay hal qof uu haysto ma qaban karo shaqo haddii uu awoodi lahaa 5 qof inay qabato oo kale tusaale ahaan aan usoo qaato website-ka Hiiraan la yiraahdo oo kale website-ada badanaa hadda xamar ka soo baxa waxay sameeyaan maadaama ay nolosha ay ku jaban tahay dhinacaas waxaa la samaystaa 2 qof ayaad waxaad ka shaqaalaysanaysaa meel internetka ku fiican yahay sida Nairobi oo kale marka labada nin baa waxay warka ku soo tabinayaan in aad adigu aad u awoodi kartid marka inaad nimankii equipments u heshid computerkii u baahan yihiin kaamirooyin fiican bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin marka coordination dad Africa jooga Europe jooga iyo qurbaha jooga oo wada shaqeeya sidoo kale waxaa la rabaa inay yeeshaan urur inay wixii ay urur yeeshaan haddii ay urur yeeshaan ayaga naftigooda ay wixii qaladaadka ay ka wada hadlaan sababta tahay ninka siyaasiga ah marka la saxayo asaga isma saxay haddaan maanta aniga aan qof wareysto qofkii qaladkiisii ma sheegayo moogta laakiin laba wariyo oo kale oo wixii qaadaadhigaya
way tilmaami karaan oo oran karaan ninkaa waxaanu ku qalday ninkaa waxaanu ku qalday waxaa la rabaa marka inay ayaga naftigooda ka doodaan arrimaha ka doodaan arrinta ugu muhiimsan oo aan arko dhibaatada ay ka jirto waxa weeye dhaqaalaha maadaama wadankii aysan dawladi jirin nin maamul leh oo aan u malaynaya inuu hay-ada caalama uu wax ka helayo hadda hiiraan oo kale waxaa lagu yiri organisation baa laga dhigay waxay funding ka heshaa dawladda iyo hay-ada kamid ah United Nations oo kale waa aragtayo waa pro government dawladda la socotaa marka waxa weeye waxay u baahan yihiin dhaqaale annaga hadda website-ada oo kale cid maxay u siisanayso wax cid kugu dhaqaaleynayso ma jirto sida la adigeed way adag tahay marka qofkii inaad shaqaale aad qabsatid oo aad shaqadii qabatid xilligan hadda la joogo website waxaa jira aan rab jeclayn xataa magaciisa inaan hadda soo qaado website-ka waxay samaysteen dad ingiriis wax ku qora sababtoo taa ninku hadduu ajenda leeyahay hadaf buu leeyahay hadafkiisa si uu fushto dad ingiriis wax ku qoray soo shaqaalaysteen so maadaama aad arrintan SSC xagga media ay wax iga weydiis I think dadka deegaanka SSC waxa weeye annaga hadda waanu isku hawlaynaa laakiin waxaanu qaban karnaa weeyarta dadka waxaa la rabaa inay ka qayb qaataan barnaamijkan waxaa la rabaa in dhalinyarada tababar loo furo in maxay urur saxaafadeed la sameeyo in maxaan ku raahdaa dadkii naftigiisa hadaad website ku xiran tahay website gooni ah tahay aad tiraahdo inuu sideed baa dhaqaalaha ku heshaa ma garat maxaase shaqadaada ku wanaajin kartaa dabcan waxay noqonaysaa cameraan u baahanahay ama website-ka in la hagaajiyaan u baahanahay sida la liga dhaqaalahana waa arrinta ugu weyn oo aan laga maarmaanka ah waa aqoonta arrinta dhaqaalaha ah iyo bulshada oo wixii ka qayb qaadata arrinta ugu weyn oo kale aan arkay waxa weeye dadkayga ka maqan waxa weeye saxaafadda waa inay engagement ku samaysaa haddii article lagu soo qoro waa inaad opinion soo dirtaa waa inaad comments ka qortaa waa inaad qofka telefoonkiisa tira arrintaas sidaa ma aha dadkayaga ma jirto foojinaan caynkaas oo kale qaas ahaan marka arrimaha Soomaaliya lagu qoro Ingiriis ma jirto cid wargeyska ama ninkii wacaysa ama email u dirayso arrintii ka hadlaysa so marka aniga haddaan waxba ka qaban adigana waxba ka qaban yaa wax ka qabanay de waa cidna moogto marka waxaan ku baaqayaa in meeshaas midnimo qaas ahaan maadaama uu hadda u shir socdo oo la midaynayo dadka deegaanadaas waa laga maarmaan saxaafadoodana inay midoodo sidoo kalena inay cilaaqaad la yeelato saxaafadda kale ee Soomaalida inta Soomaali weynta ogol waa gartay daawadayaal intaas waxay noogu dhamaaday barnaamijkeennii aynu caawa kaga hadlaynay bal waxyaabihii ay ka qoreen saxaafaddu arrimaha gobolada Sool Sanaag iyo ama shirka ka socda Taleex oo hadda aan weli la gudagelin laakiin furmi doona maalmaha soo socda intaynu mar kale hawada ku kulmi doono waa anigoo Maxamed Maxamuud iyo Axmed Laari oo idin leh habeen wanaagsan